barakaatu runtii doodan maanta oo ku faraxsannahay in xildhibaanadu doodaan waxyaalaha dalka ka jira gaar ahaan xagga dhaqaalaha iyo cashuuraha wax iska weydiiyaan cabashadii ganacsatadu ay muujisay inkastoo la xalliyey oo ilaa heer madaxweyne lagu xalliyey oo ay ahayd inaynu naano yees ganacsatada waa ku qancay annaguna waa ku qancnay oo yarayno haddana annagu xukuumad ahaan waxaanu diyaarnahay in baarlamaankuna nala xisaabtamo wixii khaldanna talo laga bixiyo waxaan salaamayaa runtii oo sharaf weyn u haynaa shacabka Soomaaliyeed iyo ganacsatada Soomaaliyeed sida ganacsatada kale adduunka dawladnimadeenu inta ay hadda socoto ku taagan tahay waxaanu aaminsanahay bini'aadanka markuu wax maamulayo meel kasta khaladaad iyo maamulkaas sidii loogu talagalay dadka qaarkii waxbay ka qalloocin karaan laakiin khaladaadka in la saxay iyo in la sheego labaduba dadku wixii ku khaldan ay ka hadlaan wax wanaagsan weey laba qodob baan rabaa inaan horta marka hore xildhibaanada sharafta leh kula dardaarmo mid waxa weeye horaan halka uga sheegay dawlad haddii la dhaho waa inakoo dhan boodhiga ugu weyn ee sharafka dawladda huwana waa baarlamaanka waxaan qabaa baarlamaankaasi baarlamaan waxa uu saxayo iyo waxa wax dhibaal kale kala saari kara inuu yahay waxaa muhiima in baarlamaanka halkan oo kale sidii odaygii halkan ka hadlay uu sheegay aan layna ka dareemin dadka Soomaaliyeed inaan isku dirayno ama kala qaybinayno inaan layna ka dareemin baarlamaan unity Soomaaliyeed haya oo ilaalinaya inaan noqon waxaan kaloo ka digayaa dawladnimada in loo caayo dadka Soomaaliyeed it is arrin khatar weyn sababtoo ah dadka Soomaaliyeed rajo kale ma qabaan dawladdaana u rajo haddaad caydo oo laga hor yimaado timaado oo hal dumiyo tiraahdo xagee u wada mas'uulna tahay taraa ka muhiimsan ajada waayo waa jiritaan waa marka waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed dawladnimada yaan loo caay haddaan xaaladda dalkooda ogtii wax yar ka dhaho inagu dawladnimadeenu iyadoo xoog la burburin maalin kasta waa la soo kabanay maalmo kamida dadka hadda leh ma dalkoo dhan cashuurta laga wada qaado dad kale maalmo kamida xaafad xamar ay dawladdu ku koobnay ma awoodeyn meel kale mararka qaarkood jawhar bay joogtay xamar oo dhan ma joogin marka dawladda maalin walba maxay oo suuragal ay ku shaqeynaysaa xagaa ka shaqeyn karnaa xagee wax ka qaadi karnaa xagee dawladnimada ku sii socon kartaa marka qofka maanta xaaladda dalka og meel inuu khawaarij haysato og meel qabiil inuu haysto oo maamul goboleed isku sheegay oo dawladnimadii ma soo gelaysa iyo kuwa ka sii daran haddana le hal la mideeyo dadka yuu khaldi dawladdu wixii ay samayn kartay marba samaynaysa meel fiicanna way maraysa way soconaysaa magaalada muqdisho oo madaxii Soomaaliyeed aqoontii Soomaaliyeed dhaqaalihii Soomaaliyeed wax kasta ah oo shacabka Soomaaliyeed wada maal gashadayna waa meeshii bixin lahayd cashuurta waa marka taasna waxaan leeyahay xildhibaanku waa inuu baraarugsan yahay oo kara maxaa adigu dawladda ka tirsatay ku suuragala waajibaadka xildhibaanka waxaa kamid ah constituency-giisa inuu ku soo xiro dawladda waa waajibaadka xildhibaanka saas loo doorto aan ku soo xidhnaanaadbo aan suurto gelino in dawladdu dalkoo dhan ay cashuur siman ka qaado iikaani budgetkaa haray budgetkaa wax ka dhahaya budgetkeenu waa 1 bilyan oo boqolkiiba 70 cashuur bixiye kale bixiye oo kab
بقول كيف تضرات واحد بحيي عشور بحيي صومالي وكلا دو دين سو كلا بحيي وحن فيرين يا بچت كلامه وطن بفيرين كان يا بچت كده وصدح بقول سدية 2 بليون إنك وهل بليون ستوريز كبخارة قاركود ببچت كده هل مليون هاي ويقولها قالين بچت public relation كا يعني شغله دكتور سعوديان هل بليون وحاله ستور بالي انت اسمع جبوتي ما فيرين جبوتي وإلى 8 إلى 9 بليون انت إليكتوا وقتها تبكيدوا انتوا يا دالك ولا عليه انه وقتها وان دقال خوارجات كتيرين دولة الظروف نوع عاصر يكون شقينيسا او خوارج كلا دقال ميسا او معلمين يا جامعيين بلا شبحينيسا مشارسينيسا او عافمات بحينيسا او شقالة دولة وبرلمان كميد يهي مشارسينيسا oo diblomaasiyad iyo siyaasad arrimadeeda uga shaqeynaysa waa hal bilyan oo shirkad yar isku maamusho adduunka marka walaalayaal waxaan arkay maqaal uu qoray hadda ambassadorki wasiirka arrimaha dibadda hore ee Turki Soomaalidu la talinayo waa ku jira meelaha qaar baan soo dhigay wuxuu yiri Soomaaliya haddii la dhihi lahaa 10ka wadan ee adduunka ugu istiraatiijisan sheeg haddii la dhihi lahaa waa sheegi lahaa Soomaaliya number 1 ka dhigi lahaa dadka Soomaaliyeed la taliyay istiraatiijiyadooda inay ilaashadaan maraakiibta martuu sheegay gacanka meesha hadda aynu ku haysato Itoobiya ayuu sheegay waxa weeye walaalayaal dalkeenu maanta isqabsi uma baahnana furid buu baahay iyo midnimo dowladnimada illa khalkhal geliyo uma baahna waxaan doonayaa oo amaanaya in dawladdu si fiican oo ficila ila heer madaxweynaha uga jawaabtay cabashadii ay muujiyeen ganacsatada ay uga jawaabtay walaalayaal taa aan amaano dadka Soomaaliyeed aan ku dejino inay midoobaan cadow badan bay leeyihiin u midoobaan cashuurta bixiyaan si dawladdu uga baxdo dhabtiga ama deyntaas uga baxdo inay midoobaan inaynu kulligan ama intaan isqabsano ku dadaalno inaynu meel wada jeeshano oo isku tashano oo dalkeena aynu midayno marka waa la xaliyay cabashooyinkii ay sheegtay ilaa heer madaxweynaha lagu xaliyay ficilo ayay qaadeen wasaaradaha iyo madaxweynaha ay qaadeen marka walaalayaal anigu waxaan tala guud iga oo aan idinku baraarujin runtii waxaan amaanayaa sidii sharciga ahayd ee uga hadleen xildhibaan Ilyas iyo xildhibaan Ayuub sharciyada ay ku fadhido cashuurta la qaaday hatta waxaan fiirinayaa barnaamijkii ay ansixiyeen baarlamaanku ee xukuumaddu keentay baarlamaanka tiirkiisa afraad waxa ku jirta xoojinta dakhliga baarlamaanku way u ansixiyeen xukuumadda way u ansixiyeen haddii uu tariifadii oo dhan inta la soo qoro la keenayna waa hawl inoo taala halka maalin walba sharciyeenu ka gudbinaa marka xildhibaanada walaalahay waxaan leeyahay war fursad u siiya maalinba intii shaqeynaysa inay waqti u hesho bini aadamka wixii ka khaldama waa laga sixi karaa talada xildhibaanada waanu ogolnahay ee wanaagsan laakiin nin meel tuuga oo isbaara dhigtay ninkii soo arkaba oo sheegi kara waa la qabanaya aad baa u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa xildhibaanadu inay dawladda iska rab istaagaan xilli adag baa lagu jiraa wallaahi anigu 20 iyo dhowrkaas aan ku soo jiray dalkeenna lama haweysan jirin hadda waa la haweystay waliba meeshii ugu istiraatiijisanayd baa la haweystay haloo midoobo waa mahadsantihiin xildhibaanada sharafta leh xildhibaanada noo